bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhawaad janalkan warkii ugu dambeeyey ee subaxnimo. waxaad ka socon doontaan ciyaarihii oo baxay laakiin bilaabo doona beri ama beri dambe ciyaarista xoogaka inaba caadimaan xoogakii ayaa la wada baxay. faransiiska ciyaartooyda arkay, sidoo kale Germany, Spain ciyaartooy badanaa baxeen. sidoo kale bandhigii laga soo sameeyey bilaawashadii horyaalada wax ayaa ka taawan doona. ninkii Arda Güler oo cirkas maray Olise Grealish inaba caadimaan maanta kale 12 sano ka hor Mesut Ozil oo kusoo biiray naadiga kubadda cagta Arsenal muxuu ka qabsaday. sidoo kale nimankii Chelsea ahaa oo Jackson lacag fiican ka heli karo inaba caadimaan lacag yar ay ka soo bixiyeen, lacag fiican oo ku dhawaad 50 milyan ay ka faa'iidi karaan ayaa leeyahay. sidoo kale Liverpool iyo Arsenal oo isbarbardhig lagu sameeyay ay soo qaateen ee ku wada filan qadka dhexe ee Real Madrid season ka soo socdo waxba lagama qabtaan waayo. jiilka cusub ee ku dayaan Neymar Jr ayaa hal iyo laba niyaga taaw doona. wax walba ugu baahan tahay qaramada siday u kala sareeyaan inaba caadi maahan. weli waxaa haysta ayaa leeyahay xogka qaranka Argentina yaa labeeyaa saddexeeyo ninkii Lamine Yamal iyo Fermin Lopez oo kaftame. Fermin Lopez oo asigana arin muhiim ah ka hadlay baana ka soo saaray aadista naadiga kubadda cagta Chelsea inaba caadi maahan. saddexda kulan ugu soo horeysay naadiga kubadda cagta Chelsea soo laabashadii Kevin De Bruyne ee Belgium muxuu ku arkay ninkii Garnacho ahaa oo markaan tababar bilaabay mac salaameyntii ka Gianluigi Donnarumma inaba caadi maahan. kusoo dhawaad janalka ugu cusub fadlan subscribe noo dheh like nasar siin share galay oo leedahay asxaabta jecel xogta sports inay saacad walba maqlaan. soo dhawaad saaxiibayaal wararka ay soo khulaasay doona insha Allah hal iyo labo maadaama ciyaar aysan jirin ilaa suuq kala iibsi waxyaabihii laga qorqore iyo dhacdooyinka hadda taagan ayaa hal iyo laba ka taawan doona. ninkii Gianluigi Donnarumma ahaa ugu dambeyn waa mac salaameeyeen naadiga kubadda cagta PSG mac salaameyn qaasa kala laaba iyaga oo dhaheen nin waxaa noo tahay wax walba inaba caadi maahano bye bye. ku biiristaadii Manchester City-na guulo weyn ayaa kaaga rajeynaynaa. sidoo kale waxay soo bandhigeen inaba caadi maahan dhacdooyinkii waxyaabihii ugu kululaa la soo kulmeen inta isla joogeen. Gianluigi Donnarumma waxaa leeyahay AC Milan ayaa ugu horeysay PSG oo la jooga 2015 ilaa 2021 asigoo kula guuleystay 16kii Supercupda Italia. kadib PSG ayuu aaday AC Milan markaas ayay qaaday horyaalkeedii 11 sano kadib ayay horyaal qaaday kadib markuu asikatay inaba caadi maahan. sidoo kale waxaa leeyahay PSG wuxuu ku biiray 2021 ilaa 2025 ku dhawaad 4 sano ayuu la joogay. 4 League 1 ayuu la qaaday. sidoo kale Coupe de France oo loo xabeeyay. sidoo kale Trophies Champions oo 3 xabe ilaa iyo 2024 oo kula guuleystay mondialaha Champions League agtooda mondial oo ka yahay Coupe Dunia inaba caadi maahan. way u halgameen ninkan marka intaasoo jeerna wuxuu qaaday koobta Golden Boot-ka 2019kii Serie A ayuu qaaday 2020 ilaa 2021. sidoo kale Euro 2020 wuxuu qaaday Player of the Tournament halka 2021 oo qaaday Yasin Trophy halka League 1-ka Keeper of the Year-na uu qaaday 2022 iyo 2023 inaba caadi maahan. 2024 wuxuu qaaday naadiga kubadda cagta PSG Champions League-geedii wuxuuna ka mid noqday Team of the Season. waa sheekada Gianluigi Donnarumma ee ku biiray naadiga kubadda cagta Manchester City asigoona soo imaan doona Manchester City taageerayaasha hortagi doona ayaa leeyahay kadib fasaxa qaramada qarankiisa Talyaani ayuu hadda toos u aadi doona. kadibna waxaa leeyahay wuxuu imaan doona Manchester City oo waayihiisa cusubna oo ka bilaabo doona. Gianluigi waaxid ka tirsan naadiga kubadda cagta Manchester City. sidoo kale naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa ogeen inay lacagta ugu badneed ee kasoo xaray suuq kala iibsiga kuwa ay bixisa marka la iska dhaafo. haatan waxaa leeyahay Jackson ayay ka faa'iidi kartaa 44 milyan lacag ku dhawaad iibkiisii haddii naadiga kubadda cagta Bayern Munich uu anfaco ee iibsato. waxaa leeyahay 37 milyan ayay ku kansatay halka 81.5 milyan Bayern Munich ku qaarijisay ayaa leeyahay. sidoo kale Jackson iyo Bayern Munich ayaa wajihi doona ayaa leeyahay 17 September
naadiga kubadda cagta Chelsea kulan ka tirsan UEFA Champions League wareegiisa koowaad inaba caadi maahan. Sidoo kale Ferland Lobas ayaa asiina qoraal soo saaray ku dhahayo marna ma dooneynin ina baxo, waxaa niyadeeda ahayd joogista naadiga kubadda cagta Barcelona. Lamine Yamal asi ayaa wada kaftameen oo dhahayaan niyo gurigaada London waa u jeeda camal waa kaya waa isboojeen, marka waa saaxiibo dhow oo akademiyada kasoo wada baxay. waxaan leeyahay Lamine Yamal ayaa kula kaftame ninkan inuu gurigiisa England waa kaya, marka ninkaasna ma doonayo marna inaa ka tago, ma rabin inuu dhaafo Barcelona. ninkii Garnacho ahaa oo la arkay asagoo ku tababaranayo maaliyadda naadiga kubadda cagta Chelsea maadaama uu ku biiray Chelsea, wax kale waa ninkaas haatan waxaa leeyahay taas khaas ayuu u tababaranaya maadaama Argentina laga tagay naadina kulama aysan dheelayn, markaan waxaa leeyahay cawska cagaaran ayuu tumaya. ninkii Badri ahaa oo wax kaleeyay wax walba sheegay wuxuu wax dhan kusoo koobay waa soo laaban doonaa, wax walbana waxay noqon doonaan meesha uu horsareeso oo u baahana inaad tagno. Barcelona iyo Lamine Yamal ayuu marka hadlay, wuxuu yiri Lamine Yamal waa xidig heer sare ah, inaba caadi maahan, wax walba u baahan yahay waxay noqon doonaan sida ugu fiican. mar wax laga weydiiyay Ballon d'Or Lamine Yamal ayaa number 1 ku sii karaa oo leeyahay. sidoo kale Ousmane Dembele booska labaad, halka saddexaadna aniga isku qori kara ayuu leeyahay. Badri ahaan inaba caadi maahan waana u qalmaa. ninkii Sofiane Amrabat oo ku soo laabtay Real Betis idin sheegay Real Betis ayuu ku biiray, waxaa leeyahay soo xasuusta World Cup-kii 2022 u dhaxeeyay Morocco iyo Faransa oo naadiga Morocco wax kaleesay. sidoo kale 18kii qaadaysa xataa wax kaleeyay xulka kaliya ee Afrikaan kaalin saddexaad imaaday World Cup ahaa. marka jug iyo jangalaftii ka dhex martay Mbappe iyo ninkaas ayaa la isbarbar dhigaya. marka waa arki doonaa ninkii Paul Pogba ahaa oo waxaa la arkay ku tababaranayo maaliyadda cadcadka Real Madrid inaba caadi maahan. marka waxaa leeyahay miyuu jeclaa ninkaas, weligiisoo jeclaa ninkaas, mara idinka maaro qarashkaas idinka bixi waaye. sidoo kale ninkii Carvajal ahaa oo mar su'aal lagu turtuuro ayaa yiri wax laga weydiiyey fariisashada kubadda cagta oo ku fadhiisanayo waa ka fadhiisanayo dhahay haddii hadda uu ku guuleysto Champions League toddobaad iyo World Cup-kii koowaad ayuu leeyahay waa soo afjari doona kubadda cagta, wax kale iyo dhima malaha. ninkii Arda Güler ahaa bandhigiisii waa laga indhaha laga qabsan laayay, waxaa leeyahay ninkaas top talented waa daayir cajiib waa 15 gool ayuu siiyay naadiga kubadda cagta Real Madrid, 10 gool oo dhali 5 gool caawin ah. ninkaas marka wax kale waa ayaa leeyahay. sidoo kale qadka dhexe ee Real Madrid haddii ay ku darsadaan kawarma ninkii Rodri ahaa Bellingham iyo Valverde ay ka horeey karaan inaba caadi maahan. yaa u joogsan kara Real Madrid, cid u joogsanaysa malaha. ninkii Gundogan ahaa oo lagu soo bandhigay cariga Turkiya asigoo ta Istanbul aad loo soo dhabeeyey, wax kaleeyay saadaashii iyo waxyaabihii dhanna qabsaday. sidoo kale ninkii Mesut Ozil ahaa oo maanta oo kale 12 sano kahor ay soo qaadatay naadiga kubadda cagta Arsenal soo bandhigeen kula guuleysta koob badan. ninkii Arsene Wenger ahaa ayaa loo xasuusanaa ninkaas inuu keenay bandhigiisa high level ahaa, xitaa kulama qaaro waali ahayd gambisyo khatar ahaa lagu xasuusto. ninkii daawaday Arsenal ka sheekay kan Mesut Ozil. sidoo kale waxaa leeyahay 44 gool ayuu dhaliyay, 77 caawin waa uu ka sameeyay intuu joogay saaxada kubadda cagta ee Arsenal. 4 koobna uu kula guuleystay 12 sano kahor maanta oo kale ayayna ahayd kusoo biiristiisii Arsenal inaba caadi maahan. waxaa la isbarbar dhigayaa Ferland Wiss iyo ninkii Grealish oo hadda ku biiray Everton. waxaa leeyahay Ferland Wiss ayaa ku imaaday 116 milyan inaba caadi maahan, halka Jack Grealish oo Everton ugu biiray qaab fari ah ama sabtaqaaneed. waxaa leeyahay Ferland Wiss wax gool iyo wax caawin ma uusan ka sameynin, halka 4 gool oo caawin uu ka sameeyay kubadda cagta Everton. Jack Grealish inaba caadi maahan. marka waxaa leeyahay maanta taariikhda 3 waaye 3 maadaama ay tahay waxaa la soo hadal qaaday ninkii John Navas garabka midig daafaca PSG oo 3 leeg ku toortay lugtii labaad League 1-ka inuu caadi maahan. sidoo kale ninkii Olise ahaa oo asigana bandhigiisii
top lagu tilmaamayo Bundesliga iyo Premier League durba wuxuu soo gabagabay leeyahay booski oo goolasha oo ka joogay Premier League asoo Premier League ka dhalay 14 gool halka Bundesliga hadda oo sii marayo ninkan 15 gool inaba caadi ma marka 46 kulan oo ciyaar naadi kubadda cagta Bayern Munich wuxuu leeyahay 15 gool marka Olise ninkii yaqaan sidoo kale ciyaartooyda da'yarka talentedka ay ku danayaan Neymar Jr oo markaan soo ifbaxayo saaxada kubadda cagtana qabsarayo Lamine Yamal ayaa la arkay sidoo kale Doué oo ka tirsan naadi kubadda cagta PSG inaba caadi ma marka Neymar asaad duqoobe laakiin ilmo ajaayib ayuu noo reebay marka kuwaas ku raaxaysta ayaa leeyahay sidoo kale halka qaranka Faransiiska ayaa la arkay cidiyooda oo isleedahay ma dhar noocee wataan noocee waa qoomiyad noocee waa xitaa Ekitike iyo Konate Konde ciyaartooy badan la arkay Mbembe Olise naftirkiisa waa ka marka waxyaabo badan ayaa jiro waxaan timiya idaafa sidoo kale naadi kubadda cagta Liverpool ayaa seasonkan soo qaadatay dhammaan ciyaartooydii dhiba ayaa leeyahay isaaq ayaa u jeednaa oo ku wax kaleeyay naadi kubadda cagta Liverpool xitaa Van Dijk waa ka keenay waa ka sidoo kale Carcass oo ka imaaday Bournemouth oo celiyay ninkii Salah ah dhibay seasonkii hore haddana waa naadi ayuu ka tirsan yahay sidoo kale Ferland Wis ayaa ogeen in asina Champions League uu ku cadareeyay haddana waa xiddi ka tirsan naadi kubadda cagta Liverpool marka hal san ayay ku sameeyeen waxaas oo dhan oo xidigaha dhibay ay ku soo qaateen nimankii Arsenal ah iyo Liverpool ayaa isbarbardhig loo sameeyay Liverpool ayaa qarsh gareysay ayaa leeyahay 416.2 milyan halka naadi kubadda cagta Arsenal qarsh gareysay 247.3 milyan inaba caadi ma marka xidiga badan ay soo qaateen halka Liverpool loo xasuuso doono Ekitike Carcass Verbo sidoo kale ciyaartooy badan ay soo qaateen oo ugu dambeeyay isaaq xitaa gool hayaa la arkaa halka Arsenalna Supermandi iyo Odegaard iyo sidoo kale Keba iyo Eze daafici ahaa Mosquera inaba caadi ma ciyaartooy badan Yogers ha ka reebin ay soo qaateen marka wax walba waxay noqdeen lacag meesata seasonkan bixi guuleysatay sidoo kale wararka waxaa ka mid naadi kubadda cagta Manchester City ayaa lagu kalatay kaliya waxaa leeyahay saf dhawaan ay ku guuleysteen horyaalka kubadda cagta Ingiriiska kaliya waxaa ka jooga ninkii Stones ahaa waa u jeedaano Ederson baxay Kyle Walker waa baxay De Bruyne waa baxay Fernandinho baxay Otamendi waa baxay Jesus baxay ciyaartooydan badan Company waa baxay David Silva baxay inaba caama Lorisane Aguero wax dhan waa baxeen kaliya waxaa soo haray ninkii ahaa John Stones inaba caadi ma ninkan asigana dhaawac bisa meesha ku hayay maroro bixila sidoo kale kadib soo laabashadii Ole Gunnar Solskjaer 2021 xiisa gaar ah ay leed maadaama booska labaad uu kula guuleystay in ka maqan horyaalka kubadda cagta Ingiriiska Champions League oogay marka inaba caadi ma guulo waaweyn oo la gaaray nimankii ahaa Tottenham Hotspur oo guulo waaweyn ka soo xaray suuq kala iibsiga maadaama ciyaartooy badan ay la soo wareeyeen oo ugu weynaa Xavi Simons halka Random Colomwani iyo Kudusna ay imaadeen ayaa leeyahay naadiga inaba caadi ma marka wax walba waa ku noqdeen wax cajiib ah sidoo kale wararka waxaa ka mid naadiga xulka kubadda cagta Argentina oo weli hogaaminayo FIFA Men's World Ranking ayaa leeyahay FIFA xulka nimanka ugu sareeyo sidoo kale Argentina ayaa kooka Spain booska labaad ku jirto Faransa booska saddexaad Ingiriiska booska afraad soo galay Brazil shanaad galay Portugiiska oo booska lixaad soo galay sidoo kale waxaa leeyahay booska toddobaadna Holland ayaa ku jiro halka Belgium ay ku jiraan booska sideedaad halka Germany ay ku jiraan booska sagaalaad oo ay soo dalaceen Croatia asina soo dalacayo booska 10aad ayuu soo baxay sidoo kale waxaa la arkayay Diogo Jota geeriso weli saameyn ku hayso xulka kubadda cagta Portugal waxaa la arkayay Ruben Neves oo markaan tattoo ka dhigtay lugtan ku sawirtay saaxiibkiisii hore inaba caadi maan ninkii Sancho ahaa oo war banaanka keenay yiri waxaa ka dambeeyay in Aston Villa ku biiro xidig Marcus Rashford saaxiib dhawa ahaayeen
naadiga kubadda cagta Manchester United ay joogeen haatana lakala tuuro Barcelona Aston Villa aadeen. sidoo kale nambaradii Luis Diaz iyo Darwin Núñez oo durba la kala qaatay, Ferland Luis oo qaatay nambarkii 7 booskii nambarkii 9aadna loo qaatay Isaac nambarkii 9aadna la wareegay. Inaba caadi ma Jeremy Doku iyo Kevin De Bruyne oo mar kale isku arkay xulka qaranka Belgium ku kala tageen naadiga kubadda cagta Manchester City. De Bruyne oo Napoli aaday, Doku oo weli Manchester City joogo, laakiin hadda waxaa leeyahay Belgium ay isku qabteen. saddexda kulan ee ugu horeeyo ee markii laga soo laabtay xulka ee ciyaar doonta naadiga kubadda cagta Manchester United September. horyaalka kubadda cagta Ingiriiska waxaa leeyahay Manchester City ay soo dhaweyn doonaan 14 September, halka 20ka ay Chelsea qaabili doonaan. sidoo kale waxaa leeyahay Brentford ay la ciyaari doonaan 27 bisha 9aad 2025. inaba caadi maan intaas ay kusoo gabagabeynayna muuqaalkeen. intaa ku kulmeeno muuqaalka waxaan iga tagi doonaa sidaas iyo ammaan Allah. subscribe, like, share aanoo balano gaarsiis saaxiibada jecel sportska inay maqlaan markii ugu dambeysay xogii ugu dambeeyay ee soo kala iibsiga iyo ciyaaraha la filaayo. inaba caadi maan. bye bye.